maxkamadda gobolka Togdheer ayaa xukun dil ah ku xukuntay Sakariya Cabdilaahi Yuusuf oo ku eedeysanaa dil iyo kufsi uu geystay marxuumad Ugbaad Cali Cabdilaahi oo ahayd hooyo dhashay 3 caruur ah. Maxkamadda racfaanka ee gobolka Togdheer ayaa saaka eedeysana Sakariya Cabdilaahi Yuusuf waxay ku xukuntay xukun dil ah sida uu akhriyay gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Togdheer Sheekh Barre Isaaq Barre. maxkamadda racfaanka gobolka Togdheer markay aragtay akhriday kutubta shariicada islaamka iyo qodobada 118 120 xeerka afka ciqaabta iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta guud iyo qodobka 5 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay soo saartay xukunkan magaca eebe magaca qaranka Soomaaliland magaca maxkamadda racfaanka gobolka Togdheer xukunkii maxkamadan waxaa la diiday asbaabta racfaan ee rafcaanlaha iyo dood afeedkiisaba waxaa la aqbalay jawaabka xafiiska xeer ilaalinta ee gobolka Togdheer waxaa la ayiday xukunka maxkamadda gobolka Togdheer dacwadda ciqaabta lambarkeedu yahay 439 ee 22 waxaa lagu xukumay rafcaan le Sakariya Cabdi Yuusuf ina qadan Maxamed oo 25 jira dil toogasho ah oo loo qisaasayo marxuumad Ugbaad Cali Cabdilaahi ina nimco haybe oo uu si badheera u dilay kufsina ugu daray sidii cadeeyeen 6 marag oo dagaal iyo qaawanaanba sheegay iyo 4 dhakhtar oo cadeeyay kufsi dhaawac iyadoo la raacayo oo maxkamaddu u raacayso aayadda quraanka ah walakum fil qisaasi hayaa iyo aayadii kale ahayd wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq iyo xadiiskii nabiga ahaa سوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق وحانا فرن رعفان انت شرعي وقوليه وحاصو صاري حكم كان قدي دي تشيغا ايكالا شيخ برخد إساق بره قدومية حسن اسماعيل قوليد قرصوري عبد الله أحمد إبراهيم قرصوري كيسا بيحي عبدي قرصوري ددويني محمد يوسف إبراهيم قصورة ددوينه أو كالينايو عبد المجيد محمد جامع حق صورة وآب إستغانا مهضله إيه توفيق با عبد الغني باف التلفزيون كستار تي في مقالة برعو.